صوم صوم بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 sunnadiyo faradka oga fuqarada sakada siiya sunnadiyo faradka oga fuqarada sakada siiya saqda dhaxalki toosa rabbi usajudu barya rabbi usajudu raku'a saqda dhaxalki toosa ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا رمضان 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 كريم رمضان 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 كريم لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح لك باب التوبة مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. داوديال ugu horeyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. idil ahaantiinba meel aad joogtaanba ramadaan kariim ramadaan mubaarak. daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii weedha culimada xalqadiisii 16aad. daawadayaal waxaa caawa kulankeena ama barnaamijkeena martinagu ah fadiilada sheekh xasan maxamed cumar oo ku magac dheer sheekh jaabir oo si fiicanna aad wada taqaanaan. ugu horeyn daawadayaal sheekha marka hore ilo soo dhaweeyay sheekh jaabir ku soo dhaw barnaamijka weedha culimada. جزاه الله خيرا. daawadayaal mawduuca aynu caawa ka niqaashi doono sheekhuna inoo falaqayn doono waxa uu noqonayaa maadaama aynu ka soo hadlinay xalaqaadka hore aqliga iyo maanka iyo sida loo ilaalinayo iyo diintu sida uu ilaalisay iyo waxyaabaha dhaawacaya caafimaadkiisa waxyaabaha wax u dhimaya ama dhibaato u keensanaya. xalqadan waxaynu isla eegi doonaa bal aqliga iyo u fiirsiga kownka iyo in lagu cibro qaato iyo kownkan aynu ku sugannahay ee dhulka leh cirka leh buuraha leh wax walba leh bal iyo kaalinta uu ku leeyahay aqligu iyo ku cibro qaadashada mawduucaas baynu caawa doctorku inoo falaqayn doonaa. sheekha ayaan ku soo dhaweynayaa mar kale tafadal sheekhana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. إلهي سبحانه وتعالى فضلك ولا ليال وحا أينو كجرنا بشي رمضان بركة سنيد خير كبضنيد وحان إلهي ويدي سننا سبحانه وتعالى كوي كفا إليست بشي رمضان إنو إنقردقو كوي لو دنب دافو نارتا لغو حريو الله إنقردقو سبحانه وتعالى. انتا سوا انتا كسابسا بشي رمضان مركا حكتا وحان سودا وينيا برنامجك ان إلهي سبحانه وتعالى وحان بري يا جل جلاله هذا الكينا إنو ليناهي إنو كردقو ميدي ساقو برحتران ساقو وجيجي ساكور راذينينو سبحانه وتعالى ولا لها برنامجك كشقيين وحليناهي جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ولا الكينا وحا نعرفكو كغدعي دكتورك مركا أنو دكتور ميهي taana waxa weeyaan waan ku baraarujinaya runtii caqliga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu addoonka siiyo marnaba kama hor yimaado ilaahay wuxuu abuuray subxaanahu wa tacaala. ilaahayna jala jalaaluhu cidda uu la hadlaabo waa dadka caqliga la uun. khitaabka sharciga hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo hadalka ilaahay intuba waxay ku wajahan yihiin waa dadka caqliga leh
dad waalwaalan lalama hadlo sidaa daraaddeed baa qofka majnuunka ah wax takaaliifoo saaran aanay jirin qalinkii takliifkana laga kor yeelay ilaahina subxaanahu watacaala in fara badan kitaabka qur'aanka aynu akhriyayno ee ilaahay subxaanahu watacaala ina amray inaynu ku tadaburno cidda ka faa'iidaysata kitaabka qur'aanka ee wax kala soo baxda waa dadka caqliga leh haddaba caqligaasi waa kee caqligaasi waa caqliga saliimka ah sida culummadu ay yidhaahdaan waa caqliga caafimaad qaba ee wax shubuhaada oo soo galay aanay jirin qofka caqligiisa hadduu shubahaad galo ma caafimaad qabo badanaa waxaa laga yaabaa aayaadkan cadcad ee waaweyn inuu dafiraaba dhici karta ama ciddii ilaahay subxaanahu watacaala markaasi uu tilmaamay in ay wax ku gartaan oo ay wax ku fahmaan inuu duro ayaaba dhici kartaba caqligooga oo yidhaahdo dadkaasi waa dad wax magarata ah oo aan waxba fahmayn ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka waramay aayaad aada u waaweyn oo aynu wada arkayno oo aynu wada daalacanayno oo cid ka qarsoon aanay jirin aayaadkaasi markuu alla ka waramay wuxuu ku soo markaa gunaanaday aayaadkaasi ina fii dalika laaayaati liqowmin yacqiluun buu ilahay yihi subxaana watacaala arrimaha laga soo sheekay oo dhan aayaad baa ku sugan calaamaad adila tadulu cala allahi alwaaxid dayaan aayaadku tusinaya ilaah weyne waaxidka oo lagu garanaya ayaa ku sugan laakiin yay ugu sugan tahay waa liqowmin yacqiluun waa dadka caqligale weeyaan waa man yucmiluuna cuquulahum waa dadka cuquushooda ka shaqaysiinaya dadkaasay ugu sugan tahay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabka qur-aanka wuxuu inoogu yeedhay inaynu u fiirfiirsanno aayaadka kownka ilaahay uu dhex dhigay subxaanahu watacaala wuxuu si toosa iyo si dadbanba ilaahay inoogu yeedhay inaynu ku tadaburno on u fiirsanno oo aynu markaana kala soo baxno koonka cajabta badan leh ee sidaa quruxda badan leh isku haysta ee u nidaamsan inuu leeyahay ilaah ka dambeeya oo isagu maamulaya oo ku tasarufaya habeenkiisa iyo maalinkiisa cadceediisa iyo dayixiisaba ku tasarufaya inuu jiro kadibna uu qofku yidhaahdo laa ilaaha ila allah wax kasta oo koonka ilaahay uu dhex dhigay subxaanahu watacaala ilaahay bay nagu hanuuninayaan ninkii shaacirkii waa kii lahaa wafii kulli shayin lahu aayatun tadulu cala anahu waaxidun shay kasta ilaahay aayad baa ugu sugan calaama ugu sugan lagu garanayo ilaahay subxaanahu watacaala dhex dhigay taasoo ku tusinaysa calى anahu waaxidu ay calى ana allaha waaxidu ilaahay inuu keli yahay subxaanaه watacaala allah subxaanaه watacaala wuxuu yihi qul induruu maada fi الsamaawaati wاlardi wma tugni اlaayaatu wاnnuduru can qowmi laa yuminuun waxaad ku taraasuubana salى اllahu alيh wasalam waxaad eegtaan ood u fiirsataan samaawaadka iyo dhulka waxa ku sugan qul induruu maada fi الsamaawaati wاlardi waxaad eegtaan ood u fiirsataan samaawaadka aayaadka ilaahay u dhex dhigay subxaanaه watacaala samadu iyo dhulku badanaa inta ugu badan ee aayaadka lagu soo celceliyey qur'aanka weeyaan waayo makhluuq alla abuuray oo weyn oo bani aadamku ay arkaan waxa weeye samaawaadka iyo dhulka weeyaan marka waxay taasi inoogu yeedhaysaa mar walba inaynu aad ugu fiirsanno waxaana inagu hanuuninaysaa ilaahay subxaanaه watacaala inaynu ku garanno suuraة اlbaqara allah subxaanaه watacaala wuxuu aayad kaga waramay ilaa 8 aayadood oo waaweyn 8 aayadood baynu bal akhriyaynaa iyada oo aynu mid walba u fiirsanayno ilaahay subxaanaه watacaala hayna fahansiiye allah jala jalaaluh wuxuu yihi ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إلى 8 آيادود أما 9 آيادود أيا كسوغان آيات داسي يعني 9 علامة oo ku tusinaysa calى waxdaaniyat اllahi tabaaraka watacaala wa calى qudrat اllahi jala jalaaluh 9 aayadood oo kugu yeedhaya haddaad u fiirsato inaad tidhaahdo laa ilaaha ila اllah ood rabbigaa ku xidhnaanta subxaanaه watacaala allah wuxuu yihi
ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waa la israaciyey samaawaadka iyo dhulka abuurkooga waxaa ku sugan waاkhtilaafi اleyli wالnahaar maalinka iyo habeenka isgadigiisa waxaa ku sugan isgadgadiga isgadgadiyayaan ama isbedelayaan midba uu imanayo midka ka dambeeya mid uu gaabnaanayo mid uu dheeraanayo mid uu qabow yahay mid uu kulul yahay waاkhtilaafi اleyli wالnahaar wاlfulki alatii tajri fi اlbaxri iyo doonyaha badda dul socota ee dul sabaynaya badda oo waxaa ay la dul sabaynayaan badda waxa ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku wada ilaahay baa ku wada ilaahay baa ku daadihinaya ilaahay baa u sakhiray subxaanahu wa tacaala waxay wadaa oy dadka u wadaa wixii ay ku intifaacsan lahaayeen waxay ku noolaan lahaayeen waxay xidhan lahaayeen wاlfulki alatii tajri fi اlbaxri bima yanfacu الnaas haddana wamaa anzala allahu min aلsamaaءi min maa iyo wuxuu alla ka soo dejiyey samada oo biyo ah oo inaga arkayna iminka labadan maalmood aynu ku jirnay dee biyo badan oo ilaahay inoo soo da'siinayo subxaanaه wa tacaala oo xisaab la'aana ayaa aynu arkaynaa oo barwaaqada aynu ku jirno wamaa anzala allahu min aلsamaaءi min maayin faaxyaa bihi اlarda bacda mowtiha oo ilaahay ku noolaysiinaya subxaanaه wa tacaala biyihii uu dhulka ku noolaysiiyey markay abaarowday kadib wabatha fiiha min kuli daabbatin oo ilaahay ku dhex firdhiyey oo ku faafiyey ilaahay subxaanaه wa tacaala dhulka dhexdiisa wax kasta oo dhaqaaqa oo bani aadamku ka mid yahay wax kasta wax laba lugood ku dhaqaaqa wax afar lugood ku dhaqaaqa wax boga ku siqa wax luga fara badan oo ku dhaqaaqa waxaynaan fahmayn wuxuu ku dhaqaaqo oo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu dhulka dhex dhigay wabatha fiiha min kuli daabbatin wa tasriifi الriyaax iyo dabaylaha tasriifintooda leexleexintooda mar ay ka imanayaan midig mar ay bidix ka imanayaan mar ay ka imanayaan koofur mar ay ka imanayaan waqooyi ay ka imanayaan mar ay qabow yihiin mar ay adag yihiin mar ay jilicsan yihiin allahu akbar watasriif الriyaax wالsaxaabi اlmusakhari bayna الsamaaءi wاlardi iyo daruurtan lagu dhex sakhiray ee lagu leyliyey ee dhex socota bayna الsamaaءi wاlardi samada iyo dhulka inta u dhaxaysa ee ilaahay un haya subxaanaه wa tacaala ayib الsaxaabi اlmusakhari bayna الsamaaءi wاlardi laaayaati liqowmi yacqiluun aayaad baa ku sugan buu alla yidhi subxaana wa tacaala yayna ugu sugan tahay liqowmi yacqiluun cid wax kasaysto caqli leh oo caqligooga ka shaqaysiinaya waa caqligii saliimka ahaa wey isla aayadan aayad lamida suurat ali cimraan aakhirkeega allah ku sheegay subxaana wa tacaala waana aayaadkii nebigeena moxamed calayhi الsalaatu wasalaam habeenkii lagu soo dejay intuu sare kacay wuu ooyey waxaa u soo galay bilaal wuxuu arkay rasuulkiiyo ooyaya sal اla alay slam markaasuu ku yihi rasuulka ilaahay atabki ya rasuul allah markaasaa wuxuu weliba kusii daray waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika iyadoo ilaahay subxaanaه wa tacaala dembigaagii uu kuu dhaafay rasuulku wuxuu hi calayhi الsalaatu wasalaam afalaa akunu cabda shakuura miyaanan ahaanayn adoon mahadnaqa oo ilahay u mahadnaqa subxaana wa tacaala haddana wuxuu rasuulku markaa yidhi xadiidka ibn xibaan baa soo saaray xadiis saxiixa weeyi min xadiidi caaisha radi allahu canha wuxuu rasuulku yidhi laqad unzilat calaya hadihi اleyla aayaat weylu liman qara'aha walam yatafakar fiiha caaw waxaa laygu soo dejay buu ihi aayaad hoog baa u sugnaaday weyl baa u sugnaaday cidda aayaadka akhrida een ka fikirin lam yatafakar fiiha aan u fiirfiirsan waxa aayaadka ilaahay ku sheegay subxaana wa tacaala markaasaa rasuulku wuxuu akhriyey ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wاnnahaari laaayaati liuli اlalbaab samaawaadka iyo dhulka abuurkooga iyo habeenka iyo maalinka iskagedigooga iskadgadiyayaan laaayaatin baa ku sugan yay ugu sugan tahay liuli اlalbaab liasxaabi اlcuquul ululalbaab haddaad maqasho waa asxaab alcuquul asaliima waa dadka caqligoogu saliimka yahay ee caqligoogu mar walba u soo jeedo aayaadka ilaahay ee kowniga ah iyo aayaadka ilaahay ee sharciga ah inay wax ka fahmaan ilaahayna ay ugu hanuunaan subxaanahu wa tacaala kadib baa ilaahay jala jalaaluhu wuxuu sifeeyey dadka asxaabu lcuquulkii waxay yihiin wuxuu ilahay yihi markaa aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalى junuubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هؤلاء هم أولو الألباب أصحاب العقول وكوى
dadka caqliga lihi waa kuwa ilaahay xusaya iyagoo taagan iyagoo fadhiya iyagoo jiifa ka fikiraya fi khalqi samaawaati walard samaawaadka iyo dhulka abuurkooga ayay ka fikirayaan markaasay waxay taasi ku hanuuninaysaa inaanay khaaliq la'aan iska iman nacam inaanay khaaliq la'aan samada intaa leeg ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi farjic ilbasara hal tara من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير أن مال لشيء إن ضيعتير لغو سمي أما لغا بركة بدلي أما لغا هجاجينيو بل سيدي إلهي سبحانه وتعالى أو أبوري إتقانك الله كو أبوري كو تاغنته صنع الله الذي أتقن كل شيء مركي ساو أركان محيليهن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك إله حمان ودن أذا كان زهانه ما خلقت هذا باطلا تني إله باطل وما أبورين سبحانك فقنا عذاب النار إله حمان ودن أذا كهفا عذابك النار تعذابك سلاه نقبت بعد هذا ولا ليال العقل السليم هو الذي يفكر في هذه الآيات الكونية وفي هذه الآيات الشرعية عقلك سليمك ومتك كفكري آياتك كونية آياتك شرعية كفكري labada aayadood markuu isla akhriyana ku hanuunaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waana sidoo allah ugu talagalay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay markuu leeyahay afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat wa ila alsamaa'i kayfa ruficat wa ila aljibaali kayfa nusibat wa ila alardi kayfa sutixat markuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uga dal leeyahay dadka waxaa loogu talagalay aayaadkaasi markay u fiirsadaan inay rumeeyaan oo rasuulka xagga ilaahay uga yimid eele innii rasuulullahi ilaykum leh inay yidhaahdaan aamanaa bika wabima ji'ta bihi waanu ku rumaynay adiga iyo wixii aad la timid sidaasaa laga rabaa dadka asxaab alcuquul asaliima ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen dadka caqliga saliimka ah leh ilaahay naga dhigo ee berri toole caqligaa saliimka ilahaayeen adduunyada intay ilaahay ku garteen aakhirana jannada ku gala ilaahay nagama dhigo kuwa caqliga qalloocsan leh ama caqligoogu uu buko oo berri toola garan doona inaanay caqli lahayn wa qaaluu low kunaa nasmacu aw nacqilu maa kunna fi asxaabi saciir ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna hanuuniyo dhammaanteen waxaan walaalayaal naftaydiyo nafihiinaba ugu yeedhayaa aayaadka ilaahay ee kowniga ah aynu aad ugu tadaburno uguna fiirfiirsanno sida aayaadka ilaahay ee sharciga ee kitaabka qur-aankaaba aynu aadka ugu fiirfiirsanayno labada aayadood ayaa jira aayaat ullahi alkowniya wa aayaat ullahi sharciya ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna fahansiiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وأحسن الله إليه شيخ الله كابال مريو موضوع قالق سيدي وناكسن نقول فاهيي شيخنا القرآن إن بدون حد كواركسا أفلا تعقلون أفلا تبصرون أفلا تذكرون قل سيروا في الأرض فسيروا أولم يروا إن في ذلك لعبرة ما لسوران كرا آياتها سي waxay sheegayaan ama waxay ka hadlayaan in koonkan lagu tadabburo oo loo khushuuco loo khuduuco Allahu akbar sida aad sheegtay akhi alxabiib waxay dhiiri gelinayaan aayaadkaas oo dhan waxay dhiiri gelinayaan inuu qofku fikiro qofkuna markuu fikiro ayuu gaadhaa natiijo fiican laakiin qof aan fikiraynba ayaa adduunyada ugu daran ama fikir aan markaasi la shiilin fikir aan la shiilin oon cilmi ku dhisnayn inta loo dhiibo uun lagaga tago ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka haddaad u fiirsataan wuxuuba yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaati bu ilahi yidhi subxana wa tacaala kitaabkan qur-aankii waa kitaab barakaysan oo alla soo dejay waxaana loo soo dejay liyadabbaruu aayaati si aayaadkiisa loogu tadabburo oo loogu fiirsado aayaadka qur-aanka badanaa waxay inoogu yeedhayaan aayaadka kowniga ah ee samaawaadka ilaahay dhex dhigay ee dhulka ilaahay dhex dhigay ee bidaa ilaahay dhex dhigay ee markaasi buuraha ilaahay dhex dhigay ee xataa cuntadaynu cunayna ilaahay dhex dhigay subxaanahu wa tacaala waxaad xasuusan tahay aayaadkii suuratu cabasa allah muxuu yihi subxaanahu wa tacaala falyandur ilinsaanu ilaa طacaami insaanku ha u fiirsado cuntadiisa markaasaa ilaahay wuxuu ka waramay noocyada cuntada oo dhan siday u soo baxaan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay ilaah soo bixinaya
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن نتفكر في الطعام الذي نأكله من أين جاء. wuxuu noogu yeerayaa inaynu u fiirsano cuntadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina siiyey siday inoogu yimaadeen iyo qaabka inoogu yimaadeen. taasina waxay markaa ku tusinaysaa ina fii dalika laayaatin liqowmi yatafakaruun liqowmi yacqiluun afalaa tubsiruun lacibrata liuli labsaar. intuba inay yihiin aayado inoogu yeeraya inaan fikirno oo weliba caqligana aynu ka shaqaysiin. waa caqliga saliimka. waxaa jira sheekh dadyo badan oo welibana hadda Soomaalida mudane ku soo badanayso laakiin waagi hore aan jirin oo oranaya buurahan iyo cirkan iyo dhulkan iyo badahan iyo waxa lahayn nature ama wax dabeecada ayaa keentay ma aha wax ilaahay uu murumaysnaba dad waxa aaminsan in waxaan dabeecad inuu iska yimaad in waxaan soo iskeeno isoo iska yimi. bal sheekh waxa halka oran lahayd halka waxa oran lahayn wuxuu Allah yiri subhanahu wa ta'ala. Allah wuxuu yiri وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بدنا أبو الله يلي سبحانه وتعالى آيات سماوات كي يقول لك قصة جنا وضدك أي مرة يعني أركيان ويكجيت سنة يعني هذا وليبو يكجيت سنة يعني بالله سبحانه وتعالى. مركز ضدك عسي قنت يجب جبدي وضد إلهي ديدا الديدا سيدا درادد بي وجنس بينيان كونكا آياتك إلهي ودحدق سبحانه وتعالى وحبل عان ونس بينيان وحاني تاسكوتو سنة ساؤون إناني ماشا عقلي كوهين ويا عقلك السليم كي اسم ديدنا إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيس جل جلاله إيو وحو أدوميه سوغي ري مركا وحان لنا هاي دادكاس way badan yihiin horeyna way u jireen qaar fara badan oo ilaah badiidana way jireen laakiin waxay iska noqdeen ahadiitha wax laga sheekayo oo bay noqdeen. ilaahina subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay dadkaasi aakhirataanka waxay ku dambeynayaan inay tahay law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. haddaanahay kuwa wax maqlaya samaac ay wax ku qaadanayaan weey ama wax ka saya marka halka waxaad fahmaysaa inaanay aqli lahayn. qof kale samaawaadkan iyo dhulka sidaas u abuuran iyo cadceedaas ilaahay sidaa u maamulayo iyo dayaxaasi way iska yimaadeen qof kalihi waa qof bila aqli. jazakallahu khayran wa barakallahu fihi wa ahsanallahu ilayhi. daawadayaal xalqadeeni 16aad ee barnaamijkeeni weedha culimada caawa intaas ayaynu ku soo afmeerinaa. waxaanu idinkaga tegaynaa fi amaanillah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح.